waxaan ka soo baxnay shirkii madaxweynaha koonfur galbeed iyo ra'iisul wasaaraha oo runtii ay ka wada hadlayeen arrinta duufaanada iyo fatahaadaha ku dhacay afgooye taasoo dhibaato weyn keentay. ra'iisul wasaaruhu wuxuu ka muujiyey arrintaa inuu aad iyo aad uga xun yahay, waxaana uu ku ballan qaaday $500,000 in loogu deeqo dadka meesha degan ee dhibaatadu soo gaadhay iyo xataa fatahaadaha sidii wax looga qaban lahaa ayuu ku baaqay. waxaan isku dayaynaa arrintaas inay degdeg u suuro gasho, degdeg loo sameeyo. waxaa kaloo ilaahay aan ka baryaynaa daadadkaas inay khafiifaan. meesha waxaa ku jirto kale daadadka mar walba imanaya in loo doono si dhibaatada looga hortago aanay dib u soo noqon. iyadana arrimaheeda waa lagu jiraa. mashaariic kale ayaa imanaysa oo fatahaadaha webiga sidaa uu soo fatahayo lagaga hortago oo agagaarkiisa la xidho oo la hagaajiyo baa lagu talagelayaa. laakiin maanta waxa aan aad iyo aad uga xunnahay dhibaatooyinka dadka soo gaadhay ee deegaanada soo gaadhay ee dhismayaasha soo gaadhay. dhismayaal badan baa burburay baa la yidhi. marka ra'iisul wasaaruhu $500 buu ku ballan qaaday. sidaan idhi insha allah ilaa berrito waan dhammayn doonaa, waanan hirgelin doonaa. ilaa berrito way gaadhi doontaa meesha looga baahnaa. runtii meeshaas waxaa ka dhacday dhibaato xoog badan iyo barakac saameeyey ilaa iyo 6,800 oo qoys ay ka baxaan guryahooda. waxaan rabnaa marka dadka Soomaaliyeed, dadka reer koonfur galbeed iyo nin kastoo Soomaali ah oo waxaysto inuu walaalihiisa u gurmado, dadka reer afgooye loo gurmado. dowladda federaalka waxaan uga mahad celinaynaa gurmadkii ay noo sameeyeen, ay u sameeyeen shacabkooda iyo dadka reer afgooye. lacagtii 500,000 ahayd oo ay ku deeqeen dowladda federaalka, ra'iisul wasaaraha iyo wasaaradda maaliyadda iyo dowladda oo dhanna waa uga mahad celinaynaa. waxaan kaloo rabnaa hadduu ilaahay yidhaaho hay-adaha caalamiga ah iyo dowlad goboleedyada iyo shacabka Soomaaliyeed oo dhan inay u gurmadaan dadkaas dhibaataysan oo biyaha ku dhex jiro, oo jiif la'aanta ah, cunno la'aanta ah, meelay istaagaan la. markii taas laga gudbana in loo helo xal waaro si uusan u soo noqonin fatahaadda ayaan codsanaynaa. annaga haddaan nahay dowlad goboleedka koonfur galbeed, deegaankaana iyo shabeellada hoosena ay tahay meesha dhibaatada ay ka dhacday, waxaan u taagannahay oon waxaan haynoo dhan iyo xooggaannaga iyo taladaannada iyo aqligaannaga aan isugu geyn doonnaa dowlad iyo shacbo in dadkaas reer afgooye loo gurmado iyo dadka kale oo eeriyada degmada afgooye degan oo ayagana dhibaatada ay gaartay inaan u gurmanon u istaagno. marka sidaas darteeda cid kasta oo gacan ka geysan karto waxaan rabnaa dadkaas ilaa iyo 7,000 oo qoys gaarayo 6,800 oo qoys oo laga yaabo inay meelo kale sii saamaysay sii gaarto. xogta aan hadda helayno ugu dambeysay waxaa la ii sheegay inay biyo kale ay ku soo dhow yihiin walaweyn, ayadana ay walaweynna saameyn ay ku yeelan doonaan. marka guddiga fatahaadaha aan u saarnay ee koonfur galbeed oo wasiirada iyo maamulada gobollada ay ku jiraan, ayagana waa ku mahadsan yihiin dadaalka iyo shaqada ay wadaan. shaqada in la sii laba jibaaro, dadkaasna loo gurmado. nin allaale iyo ninkii dal iyo dibad joogo oo dadkaas walaalihiisa Soomaaliyeedna u soo gurmado, wax allaale wixii lala qaban kara lala qabto. aad iyo aad u mahadsantihiin. mar labaad iyo mar saddexaad waxaan rabaa inaan u mahad celiyo deeqdii ay bixiyeen dowladda federaalka, lacagtii 500,000 ahayd. waa ku mahadsan yihiin. waxaan kaloo ka rajaynaynaa wixii kaloo soo noqdana inay gurmadkaas ay nagala qayb qaataan oo qayb ka noqdaan. cid kastoo Soomaali ahna waa u furan tahay walaalahooda inay caawiyaan. walaalihiina caawiya. dhibaatada ilaahay ha naga saaro. cimiladii iyo waqtigii baa isbedelay. xilli fatahaad ma ahayn, xilli webi uu biyo keena ma ahayn, laakiin cimiladii Soomaaliya oo dhan baa isbedeshay. waxyaalo badan ayaa soo ziyaaday. marka waxaan rabnaa in inta gacmaha la isqabsado, si walaaltinimo ah la isu kaashado, ninka daruuftay dhibka qabana la garab istaago, daruuftaas lagala bixiyo oo la isu naxariisto.